السلام عليكم حالة الفضاء ما سنتين وحن كهذا موقعك جيلك تلافك وصامر سمع وحلو جيل صامر وحن كهذا موقع مهمة إن تفهمت كم وضع معناها حسابت فان أكاديميك جيل كم وضع وحن كهذا معناها حالات أفراد مركز وحن كهذا لأنك وحلا مهم كأوقفك مسكح سكوب أنا بس إسكفان تلافك الزيرو جيل كسب بالعودة حتى نفايف جيل جوجا وتضاس دير وصامر إلا حاجة مال لوسو قشين تيلا صامر سمع مرة حسنا كهذا إن تلافك الزيرو جيل مثل جوجا أطلب سوتر جري بس تارك جري سمع تارك معناه سمعت صلاحنا فرنسي لقيسو تارك واطق أنا هذا يقانا وعدك وحنا سوتر جري بس قف كان عنك قبنا قف كلام لكم هذا قف كان إنه دميوه هذه اللي وضع وضع هذا كورن هذا قسمه معناها هرمون ساس مجرين هذا لك ثلاثة كذا أو كوه الله قف كلام لك هذا ليس من هذا عنك هذا حتى ما لو دينه وضع هذا الله آيات شكل لما يسني صارت حتى 4G أما 5G واحد كسر كبسولة سين IP address communication well developed technology دي هرمرت sababta maxay tahay 0G markii la joogay wax kasta analog ku saleysnaayeen hawada raadi hada iska shirto qofka taar ku hadlayo waa macquul inaad maqasho codkiisa mararka qaar raadi hada ku shiday oo BBC iska dhigasana maxaad maqlaysaa halo iyo book dhaxyiraay waa maxay waxa sameeyna samaacada raadiyaha iyo sodobaha ama danab kan codka sodoba ay ku jira raadiyaha wuxuu sodoba karaa codka hawada iska socday analog sida awgeed hadda waxaan joognaa xilli wax kasta 4G 5G oo yihiino qofka nagasta dhowrka albaab kugu degan aysan macquul ahayn haddii millions kusoo dhacda telefonkiisa hal sent inuu kugu soo qaldama ama aad raadiyaha intaas sheegto aad maqasho hal sent ayaad meesha maray ma soma everything is secure to its destination wax walbaba waa la hubiyey destination lagu talagalay way gaarayaan sida awgeed waxaan soo dulmari doonaa aqoonta guud ee loogu baahan qofka inuu ka haysto 0G ilaa 5G 3G markii la joogo oo ahayd G-da aad taqaanido nimbaski markii la isticmaali jiray oo qofka G iska joogto bas qadka GPRS adeega GPRS waa taqaana waxa soo GPS ki global position system ki waxa soo dhan soo maray iyo GPS hadda joogna 4G 5G oo daatada IP address ku saleysan tahay oo qof walba wixiisa loo geenay meesha loogu talagalay waxa soo okay bal fiiri shaxdan hoose marka aan ku sharxayna 1G oo ujeeda waa phone bas call bas ayaa jira message malahan wax kala malahan macnaha waa iska cadahayo تاركي واي الاستعمال جريمي لغو حل كرايو موقع لغو سوبين كرا مسج لغو دير كرا نو معناها وينجي وحال الاستعمال جري كون سغال بقول تضباطن كلا سدتنكي بدنا waxa isticmaali jir shirkadaha iyo dad qaas ah qof walba gacanta ku moodan jirin 1G generation 1 2G ku saarta 2G macnaha waa telefoonadii aan ka aragnayba markii telefoon ku imaanay telefoonadii yararka ahaa oo message-da lagu subin jira kamid aha waxa kamid ah call ku subin kartaa message dambal fariimaha yararka ku diri kartaa adeega GPRS ka markii la isticmaali jiray hormuud dadka isticmaali jiray yaqaan badan kood Soomahan waa fahmi kartaa 3G ku soo haray 3G macnaheedu maxaa waaye adeega 3G markuu yimid third generation jiilkii saddexaad ee telefoonka ayaa yimid markaas oo macnaheedu waxa lagu soo kordhiyay waxa la dhahaa internet macnaha internet ayaa ku isticmaali kartaa message ku darsan kartaa call ku soo bin kartaa internet macnaha maxaa waaye adigoo telefoonkaada haysta ayaad waxaad gali kartaa Google internet ka raadin kartaa 4G oo ahaa generationka afraad waa kan kii ugu fiicnaa oo hadda aan haysan badankood dadka badan isticmaalayaan ilaa hadda internet ku isticmaali kartaa maxuu dheeryahay dhammaantood wuxuu dheeryahay call video qof aad muuqaal kula hadli kartaa waana 4G speedkiisana saad u sareeya telefoonada smartphone kana kamid ah telefoonada isticmaalayna 5G meelaha qaar laga isticmaalo hadda waa qaybta ugu sareysa ugu dambeysada la soo saaray waa qaybta le IoT Internet of Things adoo qolkaada iska jirina mar waxaad shito adigoo internet isticmaalay inaad wax la dhahay aad dhakhtar jooga Mareykanka inuu qaliinka ka fulin kara Afrika waxa soo dhan lahaa 5G